الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد mar labaad waan idin salaamaya walaalaha barnaamijkan daawanaya meel kasta aad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad iskale fududeeyey mar kale in maaragtay aan kelmadan duubno ilaahna subxaana watacaala waxaan weydiisanaa inuu inoo fududeeyo oo maaragtay qalbigiina soo gaarsiiyo insha allah saasaan ilaahay ka rajaynaya rabbi shrax li sadri wayassir li amri wahlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli sida aan idhi maxaa la yidhaahdaa maalintii hore kan barnaamijkii ka horreeyeen maaragtay isbuuci hore sii daynana waxaan idhi maxaa ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa maaragtay inuu ina waafajiyo tawfiiqda isla markaana ujeedada aan ka leenay waxa weeyaan inaan wanaagun doonino in uriidu ila alislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqi ila billah intaa kadib walaalayaal waxa weeyaan barnaamijka horeeyaan duuban kaga hadlay qadiyadda dhaqan celiska la yidhaahdo iyo dadka dhaqan celiska noocyada ay kala yihiin iyo dhibaatooyinka ka iman karaya insha allah maanta waxaan doonayaa inaan dhibaatadun ka hadal laakiin say ila muuqato aan insha allah dhowr xal oo macquul aan isleeyahay way tahay inaan soo jeediyo waxaan isleeyahay waa aragti aan isleeyahay dadka walaalaha la wadaa waxaan laga yaabaa in aragtiyo kale oo kasii macquulsan la heli karayo laakiin ha laga doodo arrinka koowaad aan soo jeedinaya waxa weeyaan dhaqan celintu waxa weeyaan dad doonaya horta kelmadda dhaqan celis waxa ay la dhaantaa in haddii wax la sheegay la yidhaha dhaqan barid iyo wax kale la yidhaahdo kelimadda celis iyo dhaqan celis waxaad ka yara dareemaya anu inay tahay wax dad aan doonayn lagu qasbayo in la geliyo taasina ma socoto diinta islaamka waxay ku dhisantay inay dadku doonayaan inay isbedelaan saa darteed baa ilaahi subxana watacaala wuxuu leey in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim saa darteed haddii caruurta dhaqan iyo wax la barayo waxaa la doonaya waxaan la baraya in la jeclaysiyo iyaguna ay doonaan inay isbedelaan saa darteed inaan intii la odhan lahaa dhaqan celis baa laydinku samaynaya waa laydin bedelaya si oo wax la maydhayo oo kale waxay gala fudud in la yidhaahdo waxbaa laydin baraya diinta islaamkuna waxay ku dhisatay barid kuma dhisna maxay isku qasbid wax cidna waxba laguma qasbi karo saa darteed insha allah waxaan odhan lahaa malaa kelmadda laftigeeda ama culayskeeda iska leh waxaan ka bilaabi lahaa laakiin anu waxaan isleeyahay qadiyaddu waa qadiyadda koowaad waa qadiyad waalid saa darteed anu mihi dadka waalidka eedeeyo mana eedeeyo hooyooyinka masaakiinta iyo aabbayaasha wadamadan gulbaha inta yimaadeen dhibaatooyinka waaweynaan arkay kula kulmay ma eedeeyo waxaan isleeyahay meel nagaax culus baan soo wada galay saa darteed haddana waxaan leeyahay waa inay waalid ku baraarugsanaadaan qadiyad muhiim u ah tarbiyadda caruurta waxay ka bilaabmataa aniga iyo adiga hooyada iyo aabbahay ka bilaabmata haddii hooyadii aabbuhu iyagu ay dhaqankooda u hagaago oo waxay doonayaan ay sameeyaan waxaan isleeyahay runtii caruur fara badan oo dhaqanku ka xumaadayna way hagaagi lahayn saa darteed aqalka waa in laga bilaabaa maxay aqalka hooyadii iyo aabbuhu ku noolyihin waa in laga bilaaba qadiyadahan aad maanta ka baqayna aan idiin sheegay wiigii hore qadiyadahan in nolosha laga dhaco ee soomaalida ay badankooda caruurtooda ugu celiyaan wadamada ay markii hore kasoo qaxeen aniga aragtideeda wallaahu aclam ilaah baa sa garanaya dadka aan muslimiin tahayna wadamadan degan intooda badan ugama baqaan caruurtooda ugama baqaan daraagiska makaada iskuulkayna ka dhacaan ugama baqaan inay jeelasha galaanna ugama baqaan inta badan ee dadka nala shaqeeyaan la noolahay labada arrimood kama baqaan caruurtooda ugama baqaan inay jeelal galaan ugama baqaan inay iskuullada ka dhacaan inagu kuwaasaynu ka baqana saa darteed mushkiladeenu waa mushkilad inaynu dib isu eegno ka community ahaan aanaynu eegno qaabka aqaladeenu u dhisan yihiin deedna caruurtu ay hooyadoodii aabbahood u arkaan kuwa ay ku dayan karayaan kulleyba qaar baa xitaa hooyadoodii aabbahood si kasta u wanaagsan yihin laga yaabo inay gaadhiga ka dhacaan laakiin uma badna haddii hooyadii aabbuhu ay fahansan yihiin meelahay ku noolyihiin siday ugu noolaan kari lahaayeen waxaan isleeyahay ugu yaraan dee dadka kale la degan kama xumaanaya inay ka wanaagsanaadaan mooye saa darteed insha allah in laga bilaabo hooyadii aabbaha waa kow oo iyagu wixii wanaagee sida salaad tukashada iyaga hadday rabaan waxa la yidhaha caruurta qur-aan baa lasoo baraya luqad baa lasoo baraya waxaan rabaa inay hooyadii aabbuhu iyagu qur-aankii bartaan hadday rabaan hooyadii aabbuhu inay salaadii tukadaan hooyadii aabbuhu inay luqadoodii af soomaaliga iyagu ku hadlaan haddaad aragto hooyo luqad af ingiriisi ama dhaanisha ku
tijaabinayso caruurteeda dee caruurta maxay badan saa darteed qadiyadda luqadee luntay haddii la rabo in la soo celiyo waa inay qoysku ku wada hadlaan waa inay qawaaniin jiraan aqalka dhexdiisa la odhanaya aqalka inta la joogo luqadeena aynu ku wada hadalno laakiin haddii aan luqadiiba aan lagu wada hadlayn caruurtiina aanay cidibo ogeyn waxay ku hadlayaan way nagu yara adkaanaysaa hadhow inayn maaragtay inaan luqadaynu soo baran anise waxaan isleeyahay qadiyadaasi qadiyadaha muhiimka ama xagga luqadaha iyo caruurta Soomaalida intooda badan 99% way lumiyeen waxay gala mudsan imka qadiyadaha qiyamka iyo value iyo akhlaaqiyadka in xoog badan la saaro luqadu insha Allah way iska iman doontaa xitaa haday wadankii tagaan marun bay baran doonaan laakiin imka dhaqanada iyo akhlaaqiyadka ay islaamku ku dhisan yahay salaada tukashadeeda iyo runta sheegisteedii waxyaabaha noocaas ah ayaa ugu muhiimsan ee waalidku ay caruurtooda baraan insha Allah waxaan isleeyahay hooyadii aabaha laga bilaabo muhiim midda labaad qolooyinka masaajidada ayaa waxaan soo jeedin lahaa dadka caruurta u dhiga wadamadan galbeedka la degay inaanay macaamadaha diintu noqon meel ay macallimiintu ay ka qaataan waxoogaa yar oo mushahara laakiin ay noqoto meel fikrado waaweyn lagu gudbinayo caruurta yar dhaqankooda loogu ilaaliyo waxaan ku jiraa dadka qanaaco ku qaba wali dugsi quraanka ay Soomaalida dhaqankeeda ku jira waxa weeyaan waa dhaqan aad u fiican laakiin waa dhaqan aan si fiican loo isticmaalin wadamada galbeedka macallimiinta dhigaysa iyo ardayda imanaysa isma fahansana waxay isugu yimaadaan hooyo keenaysa ilmaheeda because waxay taqaaneen iyada iskuul la geeyay dugsi la geeyay markaas un bay oranaysaa adna sidii lagu geyn jiray geed sadarteed inta badan ma shaqeyso dhamaan caruurta la leeyahay nolosha ka wada dhaceen dugsiyadaas ay soo wada mareen walaa xaslay dugsiyada qaabka wax loogu dhigo caruurta aad iyo aad wax looga bedelo macallimiin hal la keenaan isleeyahay caruurtan la hadli karaysa fikradoodii aragtidoodana aaminsan yaani say u dhaqmayaan garanaya dhibaatooyinkooda garanaya la sheekaysan karaya hadii kuwa soo baxan aad iyo aad bay waxay noo qaban kartaa insha Allah community-da Soomaalida saa laftigeeda iyo ururada Soomaalida muslim iyo kuwa kale muslimiinta wadamadan deganba waa in xalal macquul la yimaadaan oo mashaakilaadka caruurta wadamadan jooga xallin karaya isbalihi way joojin karaan laakiin waxa salay way xallin karaan laakiin hadii wadci aqli يعني موضوع يعني وحنا قرشة حكمة كل سنة هدي لك يعني واحد لا واحد بدن بالو قابن كرا يمكن مساجد دتك استعمالها ودتك واوين عروري ما joogto dhalinyaro ma joogto marka sida islaamku waa saas lamiga waxa joog dadkii waaweynaa baa isu qudbaday sadartii wax badan laga bedel hadii la rabo in dhaqanka dadka caruurta la doonayo la gaarsiyo waxaan isleeyahay oo kale aad iyo aad muhiim u ah qadiyada maskaxda xanuunka maskaxda si loola dhaqmo waa dadka Soomaaliyeed wax badan ka bedelaan ogaalkayga intii aan imka ku noolaa wadamada galbeedka waxaan aad ugu soo qanacaya dhakhtarro badan oo muslimiin oo arkayna ay sheegayaan xanuunkan dadka maskaxda kaga dhaca waa un la mid xanuunada kale qofka ku dhaca sida kansarka sonkorta dhiigkarka xanuunada noocaas ay la mid yihiin waan aqbalay adduunkuna way dadka badankoodu way iska aqbalaan cudurrada dhiigkarka inay dawo u qaataan kansarka inay dawo u qaataan cudurrada sonkorta inay dawo laakiin cudurrada maskaxda waxay noo muuqatay inaynu diidano inaynu aqbalno sadarteed in marar badan cuduradii maskaxda ee dadka ku dhacay la daweyn karayay dawadii baynu diidnaa waxaanu ogolaanaa qadiyada laga yaabo inayna yaani aanay xalkii aanay keeni karin caruurta marka iyagu xanuunsanayo buka laga qaaday dhulalkeeni la geynayo ee dadna xaruuna ilaaj la geynayo xurumaha ilaajka quraanka ay saari karaan alxamdulillah quraankuna waa dawo laakiin diintu waxa kale inoo sheegtay quraanku sidoo dawada u yahay dawada kalena la raadiyo oo labadii dawaba la saaro waan yara diidanahay caruur yar mentally maskax xanuunsanaysa in xanuun kasto ku dhaco maskaxeedba jinka iyo sixirka la saaro waan yara diidanahay in kasto aan diidanayn jinka iyo sixirku wax jireenayeen laakiin waxaan diidanahay si imka dadkeena u fasiraan caruur badan oo xanuunsanaya oo la diiday in la aqbalo xanuunada maskaxda ku dhacay inta badan wax fiican kuma dhamaato ama jeel bay ku dhamaadaan saqaarkood aan arkay ama waxay ku dhamaadaan maxaa la yiraahdaa in iyaga laftigooda istilaan sidii qaarkood aan imkeedin sheegay maalinta hore idin sheego kale sadarta waa inuu aqbalaa maxaa la yiraahdaa cudurrada maskaxda in xanuuno yihiin lana daweyn karayo dad badan baanan aragnay 20 sano 30 sano ku noolaa cudurrada shaqaysta meelaha ugu sarreeyay ka gaaray dawladaha la noolay isla markaana dawadooda iska qaato in mushkil lahayn laakiin hadii inu diidno inuu meel kale ku tiirino wax laga yaabaa inuu xalkii aanaynu gaarin mushkiladda aynu si weynaynin baa laga yaabaa arrinka ugu dambeeya waxa weeyaan waxaan soo jeedin lahaa qolooyinka dawladaha system maamulada ka jira dhulka aan ka nimid anigu waxaan oran lahaa meelaha faraha badan ee ilaajyada loo furayo
dadna dadka la leeyahay waa lagu dhaqan celinaya waa mas'uuliyad dadka saaran mas'uuliyadda qaatay sadarteed waa in aad iyo aad looga fiirsadaa meelahan faraha badan ee qof kastaba intuu iska furto isagoo wax khibrado aan u lahayn uu leeyahay waxbaan daweynaya waxaanay ku daweynayaan waa in leega caruurta yar xitaa haddii wadamadii ay ka yimaadeen lagu celinayo waxay u baahan yihiin dad luqadoodii garanaya dad maskaxdoodii la hadli karaya dad ilmo yaroo laga kaxeeyay Norway ama Finland ama Swedish oo luqadu ku dhashay ku hadlaya ay tahay Swedish haddii magaalo la geeyo dhulkii kamida oo deedna meel la geeyo cilaaj baa lagu sameeyo xitaa qofkan cilaajinaya aanu luqadiisii aanu ku hadli karaynin waxa ka imanaya waan ilmaha yar xanuunkiisa uu sii bato mooy xanuunkiisa ma hagaagayo haddii xitaa ay dadku sameynayaan xarumahan faraha badan oo aan leeyahay way ka baxsan yihiin malaha yani aqal iyo maskax in la aqbalo waxaan runtii soo jeedin lahaa dadka maamulada haya meelaha jooga waa in laysanada dadkan ay eegaan haddii wax daweynayaanna waa in kuwa diintuna at least ay siiyaan waraqad ay wax ku daweyn karayaan kuwa dhakhtaraduna waa in ay siiyaan waxay daweyn karayaan labadii qolana ha iskaashadaan meel macquul ah la sameeyo caruurta yar bugtay meelaha la geenayaan yani xanuunadooda lagu sii badine haddii wax loo qabinayo waa in mas'uuliyadeeda la qaataan waxaan isleeyahay marka haddii insha Allah in hooyadii aabuhu ay doorkooda ciyaaraan haddii qolooyinka masaajidada jooga doorkooda ciyaaraan haddii qolooyinka community-da maamulada doorkooda ciyaaraan haddii qadiyadahan cilaajyada faraha badan ee mararka qaar kood diidayeen ilmi yaraaye daraaga cabay ku wareeray la yiraahdo wuxuu qabaa jimbu qabaa isagoo aan xaqiiqdo sida ahayn haddii waxyaabaha noocaas la iska daayo oo deedna si fiican arintan looga wada shaqeeyo waxba laga qaban kara ugu dambeynta waxa ku soo noqonaya insha Allah qadiyada dhaqan celiskan ku soo gabagabeynaya I think waan dareensanahay xanuunka hooyooyinka badan iyo aabayaasha badan ee caruurtooda ay ka dhacaan nolosha waan la noolahay waan la taliyaa waan dhex joogaa waan ogahay in culays badan tahay xalaalka ay dadka igu raadinayaan se waxaan isleeyahay waa mararka qaarkood waxba maxalliyaan wuxuun bay sii kharibaan sadarteed waxaan isleeyahay bal dood fiican ha laga gala arrimahan dadka wax garadkuna iyagoo aan qofna qof aan wax ku riixayn insha Allah si aqliysan ha looga wada hadlo deedna xal ha loo raadiyo ay tiin caruurta yar wadamadeeni tagaysa way iska soo noqon goore soo noqdaanba kii isbedelayana uu isbedelay kii aan isbedelayna meeshiisa uu yaqaanay wadankii uu dhalashadiisa haysto uu iska doona dhaleecaynta dhaleecayna waxba ma keenayso dooda aynu ka doodno iyo xalka aynu raadino waxa isleeyahay waa bilow insha Allah mushkilad aad u adag oo isleeyahay waqti iyo waxa u baahan tahay tamar badan iyo dad u soo jeeda imika ma arko laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah in dadkaas soo baxaan aad iyo aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.